الله وعاهدتكم على أن قضية تحرير التراب هي التكليف الأول. saacaddu markii ahayd kowdii duhurnimo 6dii bishii Oktoobar sanadkii 1977 waxaa hal mar laga wada maqlay dalka Israa'iil dhawaaqa digniinta u ah dagaalada waxay ahayd colaad mar kale qaraxday. shayga kaliya ee aan ka xasuusto colaadii 1956 waxay ahayd aabahay oo busto weyn huwana oo ku guda jira godka lagaga dhuunto colaada. taasi waxay ahayd markii iigu horeysay ee aan ogaado in colaadi dhacday. waxaan la mid ahayd waxaan arkayay maalintan dambe ee dagaalkii Oktoobar 1973. זו הפעם הראשונה שהבנתי שקיימת מלחמה. xilli ay ciidamada Masaaridu qabsadeen oo ka tallaabeen kanaalka Suez ayaa dhanka kale ciidamada waddanka Suuriya waxa ay duulaan ku qaadeen buuraleyda Golan Heights. فتح الرئيس حافظ قلت له صار الوقت. مدحوينه حافظ الأسد waxa uu amray in la qaado duulaan geesinimo leh isaga oo ugu magac daray hawlgalkii Badr. كان بدر 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 بدر. 150 ka mid ah diyaaradaha dagaalka ee Suuriya ayaa weerar dhinaca cirka ah oo aan raxmad lahayn ku bilaabay fadhiisimada ciidamada Israa'iil ku lahaayeen buuraleyda Golan Heights. daqiiqada gudahoodna waxaa afka laga furay ilaa 1 madfac oo duqeynayay goobihii ay fadhiyeen Israa'iiliyiintu. ugu yaraan 3 qaybood oo ciidamada Suuriya ka tirsan oo ka koobnaa 40,000 oo askari oo ku gaashaaman ilaa 600 oo taangiyada dagaalka ah ayaa u dhaqaaqay jihada buuraleyda kuwaas oo fulinayay dagaalkii dhinaca dhulka ee weerarka la qaaday ugu muhiimsanaa. ciidankaas oo ka tallaabay xariiqdii xabad joojinta ee la sameeyay sanadkii 1967. labadii saacadood ee u horreeyay weerarka ciidamada Suuriya waxa uu suura gashay inay qabsadaan rugtii ugu weyneed ee ilaalada taasoo ku taalay meel jooga badda ka sarreysa 2,000 oo mitir dushana ka saarnayd buurta bayaadka ah ee Jabal Sheikh. نزلت قوات وصلت قوات والقوات السورية الصاعقة اللي قامت في العملية هي markii ay dhaqaaqeen ciidamada dhinaca dhulka waxa ku xigay weerarkii ay ciidamada cirka ee Suuriya ku sameeyeen buurtii Sheikh. taasi waxay keentay in ilaaladii iyo ciidamadii kale ee Israa'iil ee ku sugnaa buurtaasi ay isdhiibaan. kaasina waxa uu ahaa warkii noogu wanaagsanaa ee aanu maqallo saacadii ugu horeysay ee weerarkaasi. أي كان أجمل خبر تلقيناه في الساعة الأولى. intii weerarku socday kooxo Falastiiniyiin oo volunteer ayaa raacay ciidamada baarashuudka ku soo boodiyay oo weerarka ka qayb qaatay. Mr. Saeed Shadid waxa uu ka mid ahaa xoogagii Falastiiniyiinta ee duulaanka raacay. ما تتصوريش الشعور انه انت محتله شيء يعني ma qiyaasi kartid shucuurtaydu xilligaas sida ay ahayd waxay ahayd markii ugu horeysay ee aanu gumaysano gumaysiga Israa'iil من المحتل الاسرائيلي. iska horimaad socday muddo 45 daqiiqo oo kaliya waxa la qabsaday rugtaasi ilaalada waxaana la dilay 13 askari oo Israa'iiliyiin ah halka 34 kalena maxaabiis ahaan loo qabtay. محمد حسين الجبرين وحاو isna ka mid ahaa Falastiiniyiintii colaadda humay. وفعلا دخلوا المرصد وكان معهم من القوات dhab ahaan ciidanka Suuriya oo ay la socdeen saraakiil u dhalatay dalalka midowga Sofiyeeti iyo Jarmalka bari waxa ay soo galeen xaruntii ilaalada iyagoo markii hore ka shifay dhamaanba difaacyada ay xaruntaasi lahayd. waxaana jirtay in ay ciidamadu halkaasi ay kala bixeen xogtii ku jirtay aaladii kaydka u ahayd xaruntaasi. الأجهزة اللي كانت موجودة في المرصد من قبل الجيش الإسرائيلي. weerarka ay qaadeen ciidamada Suuriya waxa hor fadhiyay oo kaliya 200 oo askari oo Israa'iiliyiin ah kuwaas oo ku kala firirsanaa ilaa 10 barood oo muhiim ah iyo 2 guuto oo gaashaaman oo haystay 180 taangiyada dagaalka. Figador Kahlani waxa uu xilliga taliye ka ahaa guutada 77aad
ee taangiyada ciidanka Israa'iil. باستقالتي مزرعة برأيتي بسي أفاك waxaan eegay dhanka bari anigoo arkay siiga kor u kacaysay oo aad moodo daruuro waxaan gartay inay yihiin oo kaliya raxan taangiye ah oo weerar nagu soo ah markastoo ay noo soo dhawaadaanba aragtidooda mugdi baa naga gelayay waxaanu bilownay inaanu madaafiicda kaga ridno meel fog si aanu u joojino inay hore noogu soo socdaan ama noogu soo dhawaadaan laakiin markii ay gudaha naga soo galeen waxaana kala qariyay mugdiga habeenimo oo bilaabmay aflaaq shaqo dagaalkii habeenimo ee u horreeyay taangiyada ciidanka Suuriya waxa ay dhex qaadeen oo ka gudbeen aagagii ay markii hore isku horfadhiyeen labada dhinac iyadoo aanay la kulmin wax difaaca oo Israa'iil leedahay waxaana ay ciidanku u jeesteen dhanka magaalada Qunaydara oo ah xarunta buuraleyda Golan Heights. الخبر الثاني الهائل كان هو أن الفرقة السابعة قد اقتحمت qaybta toddobaad ee ciidanka Suuriya waxa ay galeen magaalada Qunaydariya halka qaybta sagaalaad ee ciidankuna ay gashay magaalada Kashniyah waxa uu ahaa war wanaagsan oo aanu helay جنوب القنيطرة معنى ذلك أن القنيطرة قد طبقت من عدة جهات فكانت هي أخبار سعيدة ومفرحة duulaanka ciidamada Suuriya ka qaadeen aagga koonfureed waxa uu suura gashay inay dib ugu qabsadaan 30% buuraleyda Golan Heights. intii lagu jiray xilliga habeenimada Suuriyiintu waxa ay gaadheen guulo muhiim ah laakiin waxa dhacday arrin kale oo degdeg ah waxaana amarro ka yimid dhinaca magaalada Dimashq loogu sheegay ciidanku inay joojiyaan hore oo sii socodkooda dibna ay isugu habayaan safafka dambe si ay ugu diyaar garoobaan duulaan la qaado subaxnimada ku xigta iyadoo ay ciidamada u suura gali lahayd inay isla habeenimada wada gaadhaan dacalka kale ee buuraleyda Golan Heights isla markaana ay ka samaysan lahaayeen difaacyo ay kaga mamnuuci karayeen inaanay Israa'iiliyiintu dib ugu soo noqon. Linayta Nasabaja waxa ay ka mid tahay ama ay ka tirsan tahay akademiyadda ciidamada boqortooyada Ingiriiska ee Sandhurst. It's clear that the Syrian army did not permit waxa jirtay in hogaamiyaasha Suuriya ee Dimashq joogay aanay filaynin duruufta iyo taliyayaasha aagu kala kulmeen dagaalka waxaana ay aaminsanaayeen in aanay hore u sii wadi karin duulimaadka. madaxweyne Bashar al-Assad waxa uu gacan bir ah ku xukumayay ciidanka dalka Suuriya mana jirin cid si gaar ah uga shaqayn karaysay wax ka duwan kaartada gaarka ay u dejiyay duulaanka. muddo rubuc saaca ka bacdi markii duulaanka laga war helay waxa dagaalka inay galaan u diyaar garoobay ugu yaraan rubuc milyan qof oo Israa'iiliyiin ah iyadoo ciidamada kaydka ay si madax bannaan xiriyaha isaga xaadiriyeen muddo 15 saacadood ayay ku qaadatay inay taangiyadii u horreeyay Israa'iil soo gaadhaan aagga hore ee dagaalka ee buuraleyda Golan Heights. Mr. Jimmy waa tafatiraha bariga dhexe ee magaalada ee majalada Guinness ee ka faallota arrimaha ciidamada. markii ay Suuriyiintu ku fashilmeen in ay muddo 24 saacadood ah ku wada qabsadaan buuraleyda Golan Heights Israa'iilna ay soo dhoobtay ciidamadeedii kaydka ahaa waxa iska soo yaraatay rajadii laga qabay guul ay Suuriyiintu gaadhaan as Israel is mobilized. maalintii labaad ee dagaalka taangiyada dagaalka ee Suuriya waxa ay kulaalayeen harada Dabariya oo qiyaastii 15 kilomitir u jiraysay laakiin waxa ay halkaa ku arkeen gawaarida dagaalka ee ay wateen ciidamada kaydka ee Israa'iil kuwaas oo aan markii hore joogin. sarkaalka lagu magacaabo Uwer Ora waxa uu taliye ka ahaa guutada gaashaaman ee 679 oo ka tirsan ciidamada kaydka ee dalka Israa'iil. Suuriyiintu way khasaareen dagaalka waayo taangiyadii dagaalka ee ciidamada kaydka ayaa goobtaasi soo gaadhay muddo 15 saacadood ah oo kaliya halka ay Suuriya filayeen inay nagu qaadan karto 24 saacadood iyo in ka badan. guuldaradii soo gaadhay weerarkii ay ciidamada Suuriya qaadeen ka bacdi waxay bilaabeen inay dib isu abaabulaan isla markaana qaadaan weerar rogaal celisa iyagoo iska indhatirayay quwadda ciidamada kaydka ee Israa'iil ee aagga dagaalka soo buuxdhaafisay. qaybta sagaalaad ee ciidanka Suuriya waxa uu qorshaysnayd inay weerar ku gaadhaan magaalada Kafr Nafakh oo uu ku yaalay saldhig weyn oo ay ku lahaayeen ciidamada Israa'iil kadibna ay uga sii gudbaan dhinaca bariijka weyn ee Binati Yaqub kaasoo ku dul yaala webiga Urdun. ciidamaduna waxay u jirsadeen bariijkaasi masaafo dhan 15 kilomitir oo kaliya. si kodiisa ah ayaanu u aragnay weerarka Suuriyiinta
waxa aanu bilownay in aanu ilaa 3 jiho oo kala duwan kaga ridno madaafiicda annagoo joojinay weerarkoodii laakiin ay dhacday goobtii dagaalka ee saacadaha dheer qaadatay ilaa uu dagaalkii nala gaadhay habeennimadii dambe wuxuu ahaa dagaal aanu ku jebinay Suuriya. Israa'iiliinta waxa uu suura gashay inay joojiyaan weerarkii Suuriyiinta inkastoo ay ku waayeen qiimo badan oo naftoodii iyo taangiyadoodii dagaalka iyadoo ragga ka dhintay safafka Israa'iiliinta uu ku jiray taliyihii guutada 188aad ee gawaarida gaashaaman General Isxaaq bin Shohan oo lala dilay ku-xigeenkiisii iyo sarkaalkii u qaybsanaa howlgelinta. kadib fashalaadii ciidamada Suuriya aaga dagaalku ay ku fashilmeen inay qabsadaan xaruntii hogaaminta ciidanka Israa'iil ee magaalada Kafr Nafakh dhanka magaalada Dimashq waxaa ka jirtay carab ballaaran oo ka imanaysay madaxweyne Xaafid al-Asad madaxweyne Asad oo ay la kulmayeen hoos u dhacyo badan ma ahayn hortiisa wax kale oo aan ahayn inuu qaado weerar siina wada colaad laakiin tallaabadii u horeysay ee uu qaaday oo lagu tilmaamay mid aan habboonayn xilliga waxay ahayd in duulaan ay qaadaan laba qaybood oo ka tirsan ciidamada Suuriya oo ku gaashaana qiyaastii 500 oo taangiyada dagaalka mid ka mid ah saraakiisha reer Israa'iil ee dagaalka galay ayaa inoo faahfaahinaya sida wax u dhaceen diyaar ayaanu ku ahayn halka waxaanu madaafiicda u ridnay sidii dad waalan waxaanu burburnay tanaagiyadii Suuriya tii koowaad tii labaad tii saddexaad iyo tii afraad ilaa 25 taangi ayaan ku gubnay rasaastii laga ridayay taangii aan ku qornaa tabayaaki talata midrueta zaya rega critibuto dhanka waqooyi ee buuraleyda Golan Heights deegaanka markii dambe loo bixiyay dooxadii ilmada ama oohinta maalintii afraad ee dagaalkaasi waxa yaalay haraagii 100 taangi oo Suuriya lahayd oo ay Israa'iiliyiintu gubeen masiibad hal lamid ahna waxay haleeshay qaybtii 9aad ee ciidamada Suuriya ee isku dayay inay gacanta ku dhigaan saldhigga Kafr Nafakh guusha Israa'iiliintu dagaalka ka gaadheen ma ahayn mid ku timi geesinimo oo kaliya laakiin waxa jiray in taangiyada ay ku hubaysnaayeen ay ka tayo wanaagsanayeen marka loo eego taangiyada ay wateen ciidamada Suuriya هشام جابر oo madax ka ahaa xarunta daraasaadka bariga dhexe ee magaalada Beirut waxa uu inoo sharaxayaa sida ay wax u jireen هناك دبابة تتفوق عن دبابة تستطيع دبابة إسرائيلية واحدة أن تدمر 20 دبابة سورية مقابلها waxaa jiray farqi u dhaxeeyay taangiyada labada dhinac iyadoo hal taangi oo Israa'iil leedahay uu burburinayay qiyaastii 20 taangi oo Suuriya wadatay taangiyada ciidanka Israa'iilna waxay madaafiicdooda gaarsiin karayeen 2000 oo mitir halka ciidanka Suuriyana wateen taangiyo madaafiicdoodu gaari karto ugu badnaan 1500 oo mitir arrinta dagaalka qaybta ka qaadatayna taas ayay ahayd ee ma ahayn dhanka ciidanka iyo tababarkooda مع الأسف إسرائيل متفوقة بالدبابات sagaalkii bishii Oktoobar waxay maalintii afraad ee dagaalka ciidamada Israa'iiliintu waxay bilaabeen weerar ay ku soo ekeeyeen ciidamada Suuriya ee fadhiya qayb ka mid ah buuraleyda Golan Heights waxayna ku khasbeen inay dib u gurasho kaga daadigaan buuraleydaas boqolkiiba 30 taangiyadii dagaalka ee Suuriya lahaydna ay noqdeen kuwa yaala aaggii lagu dagaalamay oo ama ay gubteen ama laga tagay ciidamadii Suuriyana waxay dib ugu noqdeen halkii ay bishii 6deedii ka soo bilaabeen dagaalka هشام جابر waa kan mar kale السوريين نعم أخذتهم الحماسة في اليومين الأولين Suuriyiintu waxa ay ku khaldameen guushii ay labadii maalmood ee hore ka gaadheen dagaalka waxaana ku jirtay in ay gacanta ku dhigaan buuraleyda Golan Heights laakiin khasaaraha xun waxa ay kala kulmeen farqigii u dhaxeeyay taangiyada dagaalka ee labada dhinac السوريين في الدبابات خلال 3 أيام الأولى jihada dhanka koonfureed arrintu sidaa waa ka bedelnayd ciidamada Masaaridu waxa ay ka gaadheen guulo wax ku ool ah dagaalkii Siinay waxayna difaaciye ka galeen madaxyadii laga soo gali lahaa iyadoo laba madax loo kala qaybiyay ciidanka Masaarida ee difaaca ugu jiray weerar kasta oo rogaal celin ah oo Israa'iiliintu soo qaadi karayeen fiintii ka soo warramay goobaha dagaaladu waxay ku warbixiyeen in laba kolonyo oo ciidamada Israa'iil ay ku soo jeedaan dhanka gobolka Siinay maalintii labaad ee dagaalkana waxaa aaga soo gaadhay laba ka mid ahaa generaaladii ugu caansanaa ciidanka Israa'iil kuwaas oo kala ahaa General Abraham Adan iyo General Ariel Sharon oo markii dambe dhowr jeer ra'iisul wasaare ka noqday dalka Israa'iil
iyagoo mid kasta oo ka mid ah labada jenaraal uu hogaaminaya qayb ka tirsan ciidamada gaashaaman oo ku hubaysnaa ilaa 300 oo taangi kuna tala jiray inay weerar ku qaadaan ciidamada Masar ee fadhiya lama deegaanka Siinay qaybtii ciidanka ahayd ee horkaciyay jenaraal Addaan waxay waajaheen madaxii labaad ee ciidanka dalka Masar halka qaybtii labaad ee ciidanka Israa'iil ee horkaciyay jenaraal Ariel Sharon ay u dhaqaaqeen dhanka koonfureed oo ay kaga beegnaayeen madaxii koowaad ee ciidanka dalka Masar subaxnimadii 9kii bishii Oktoobar waxaa bilaabmay weerarkii Israa'iiliyiinta Oreydaan waxa uu ahaa suxufiyiintii reer Israa'iil ee dagaalka ka soo warramay weerarka waxaa bilaabay raxan yar oo taangiyada ka mid ahayd manay ahayn kuwa u socda dariiqii saxnaa markiiba waxaanu indhahayaga ku aragnay rasaas xooggan oo naga soo horjeeda madaafiic saxaraha dhanka kale u rogaysa ayaa naga hor timid waxay gubeen taangi kasta oo aan wadanay dhanka kalena Yusra Ammara waxa uu ka mid ahaa saraakiishii madaxa labaad ee militariga Masar مجزرة بالمعنى الصح مجزرة waxaanu ku ridnay hub kasta oo aanu haysanay oo ay ku jiraan gantaalaha lagu baabiyo taangiyada waxay ahayd xasuuq ku dhacay ciidamada Israa'iil dhan kasta waanu kaga nimid waxa jirtay in ay askarta qaarkood intay qaataan qoriga baasuukaha ay ku gubayeen taangiyada Israa'iil iyagoo u jira wax ka yar 100 talaabo Colonel Yom Tamim oo ah taliyahii guutada 9aad ee taangiyada ciidanka Israa'iil ayaa isna ka hadlay ciidankii Masar ee aanu isku helnay dagaalkaasi waxay aad uga duwanaayeen kuwii goobta lafteeda nagula dagaalamayay dagaalkii 67kii kuwan dambe waxay ahaayeen kuwa dhabar adag oo aan dhaqaaqaynin نحن أبطال نحن أبطال نحن أبطال نحن أبطال نحن أبطال نحن أبطال waxaa fashilmay weerarkii ay soo qaadeen Israa'iiliyiintu iyadoo laga gubay ugu yaraan 50 ka mid ah taangiyadoodii dagaalka taasina waxay keentay in jenaraaladii ciidanka watay ay ku amraan inay dib uga baxaan goobta dagaalka isla markaana ay difaac galaan waxaa maxaabiis ahaan loo qabtay ciidamadii saarnaa taangiyada Israa'iil iyadoo laga dhaxelay maxaabiista gaashaanle Cazaaf Yaaguri oo taliye ka ahaa mid ka mid ah guutooyinka ciidanka Israa'iil ee weerarka soo qaaday markii ugu horeysay muddo 25 sanadood ayaa ciidamada Israa'iil waxay sarkeen iyagoo difaac ku jira lana gaarsiiyay khasaare ballaaran ciidanka Masar oo ka dhigsanaa doorkii ay ciidamada cirka ee Israa'iil ku lahaayeen guuldaradii Carabta gaadhay dagaalkii 6 maalmood ee sanadkii 1967 ayaa waxa ay markan dambe dagaalkii Oktoobar ee sanadkii 73kii u diyaarsadeen gantaalaha difaaca cirka ee ay farsameeyeen dalkii midowga Soviyeeti loona yaqaano gantaalaha Sam Mr. Ran Ronin waxa uu ka mid ahaa duuliyaashii reer Israa'iil ee dagaalka ka qayb galay Masaaridu waxa ay haysteen mid ka mid ah gantaalaha ugu wanaagsan difaaca cirka iyagoo hore u soo dhigay oo ku rakibay gantaal agtiisa runtii waxay ahayd saanad si hagaagsan ugu shaqaysay waa waajib in aanu runta ka sheegno duulaankii dhinaca cirka ee ciidamada Israa'iil soo qaadayeen waxa uu si adag u caabiyay gantaalaha Saamka ee ay Masaaridu haysteen afartii maalmood ee horeeyay dagaalkaasi waxaa Israa'iil laga soo riday oo laga gubay in ku dhow 60 diyaaradood oo kuwa dagaalka Ayman Xubbadiin waxa uu ahaa taliye ku-xigeenkii guutadii 418aad ee ciidanka difaaca cirka ee dalka Masar أنا ضربت 31 صاروخ دمرت 16 طيارة 1.8 المفروض إن نضرب من 2 ل 3 صاروخ على كل طيارة guutadii aan watay waxa ay rideen 38 gantaal annagoo burburinay 16 diyaaradood qiyaastii waxa ku dhow labadii gantaalba hal diyaarad mid ka mid ah duuliyaashii diyaaradaha Israa'iil ee la gubay oo maxbuus ahaan loo qabtay ayaa cabiraya xaaladii uu la kulmay ma sharxi karo wixii ka dhacay waxa iigu dambeysay iyadoo diyaaradayda qaraxday anna aan ka goostay baarashuudkii waxaana miyir iigu xigtay aniga oo halkan jooga oo saaran gaari ay Masar leedahay
maalintii toddobaad ee dagaalka waxaa Israa'iil la kulmay jab kale 13 bishii Oktoobar waxaa isdhibay ciidamadii Israa'iiliyiinta ee ugu dambeeyay ee difaaca kaga jiray khadkii Barleef xamdi shoorabeji oo ka mid ah guutada 43aad ee ciidanka Masar waxa uu goobjoog ka ahaa ciidamada Israa'iil oo ruuxaya calanka nabadda ee cad taasoo calaamad u ahayd inay isdhiibeen الجنود الإسرائيليين waxay taageen calanka cad iyagoo ay ka muuqatay guuldarrada gaadhay weliba annagu waxaanu ula macaamilnay si wanaagsan ciidamada Masaaridu waxay jabiyeen difaaciyaadka ee Barleef ee laga aaminsanaa inaanu marnaba la dumin karayn dhammaadkii toddobaadkii u horreeyay dagaalka guud ahaan magaalooyinka dalka Masar waxaa ka socday dabaaldegyo ku saabsan guusha ciidankoodu ka helay dagaalkii Oktoobar taasoo soo gabagabaysay gacan sarreyntii Israa'iil ay ku lahayd gobolka Bariga Dhexe